السلام عليكم. شاروخ خان boqorka jilliinka iyo jacaylka maanta waxaan wax ka ogaanaynaa boqorka Bollywoodka ama SRK. haddaba ku soo dhawaada muuqaalkeena iyo dhextaalka kanaalkaba. fadlan ku soo biir kanaalka Heliska Dunida, taawana gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee muuqaaladeena daawada. mahadsanid. boqorka Bollywoodka Shahrukh Khan ama SRK jilaa aan ku hubnayn filimada oo qora balse ah jilaa jaasa soo saare filim ganacsada iyo hantilaba. SRK waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay jilayaasha ugu taajirsan dunida. hantidiisa ayaa ah in ka badan 600 milyan oo dollar. waxa uu ka mid yahay jilayaasha ugu caansan dunida uguna taageerada badan. Shahrukh Khan waxa uu ku dhashay magaalada New Delhi 2 November ee sanadii 1965. waxa uu ka soo jeedaa qoys muslim ah. waxaa la sheegaa inuu yahay muslim. qoyskooda ayaa ah dabaqada dhexe. aabihiis waxa uu ahaa qareen waxaana la oran jiray Maxamed Taaj Khan, halka hooyadiis ay ahayd garsoore waxaana la oran jiray Fatima. ayeeyadiis waxay ula baxday magaca Cabdiraxmaan waxa ayna ugu yeeri jirtay ilaa uu ka shanjirsaday. waxa uu la noolaa ayeeyadiis hooyadii dhashay, laakiin markii uu dib loo madoobay hooyadiis iyo aabihii waxa ay hooyadiis u bixisay Shahrukh Khan oo macnaheedu yahay boqorka wajigiisa. Shahrukh Khan waxa uu waayihiisa waxbarasho ku soo qaatay iskool ku yaala Delhi oo la yiraahdo Santa Columba. Khan waxa uu xariif ku ahaa dhanka waxbarashada iyo ciyaaraha. waxa uu yaraantiisii bilaabay ciyaarista kubadda cagta. sidoo kale muddadii uu iskoolka dhiganayay waxa uu ahaa jilaa masrax u haysta ardadii ay iskoolka ahaayeen. waxa uu matali jiray jilayaasha Bollywoodka waxayna yaraantiisii isla soo qaateen oo ay wax wada matali jireen Amrita Singh oo iyana akhirkii noqotay atariisho weyn oo Bollywoodka filmo ku wada jila. waxa uu dhintay aabihii kansar ku dhacay aawadiis sanadii 1981. hooyadii waxa u dhimatay macaan ama sonkor ku dhacay sanadii 1991. waxa uu guursaday Gauri Khan oo ah hinduusiyad jacayl 6 sano kala dhaxeeyay. kadib sanadii 1991 waxayna leeyihiin hadda 3 caruur ah. waxa uu sheegay inuu si adag u aaminsan yahay diinta Islaamka, sidoo kale uu ixtiraamo diinta xaaskiisa waxayna kala raacsan yihiin carruurtiisu labada diimood. sidoo kale waxa gurigiisa laga heli karaa Qur'aanka iyo sanamada ay caabudaan Hinduusiyiintu. gudagalkii isdaygiisii shaqo ee ugu horeeyay mushaarkii ugu horeeyay ee la siiyay waxa uu ahaa 10 rubi oo qura. waxa uu ku raacay tareen si uu soo daawado Taj Mahal. waxa uu ahaa bilowgiisii dhabta ah ee faneed filimkii Deewana oo soo baxay sanadii 1992. tan iyo waqtigaasina waxa isaga dambeeyay guulo uu ka soo hoyay filmaan iyo caan bixid dunida oo dhan ku baahay. guulaha uu gaaray oo carshiga jilliinka uu ku hantay waxa ka mid ahaa filimkiisii Basigar oo ku matalay booska laadarnimada. waxa uu ahaa aktarkii ugu horeeyay ee booska xun ee filimka matala. Shahrukh Khan waa jilaa dadaal badan. waxa uu bilaabaa shaqadiisa 8 subaxnimo. waqti badan oo uu ku guda jiray fanka waxa uu helay 10 biladood Filmfare. 7 ka mid ah waa jilaaga u fiican waana jaayisada ugu sarreysa ee ay jilayaashu ku naawilaan hanashadeeda. Shahrukh Khan kaliya ma ahan jilaa oo kaliya. tan iyo 2000 waxa uu sidoo kale ahaa soo saare filim waana aasaasaha iyo hantiilaha 2 shirkadood oo soo saara filmaanta oo kala ah Unlimited Dreams iyo Red Chillies Entertainment. Shahrukh Khan waxa uu haystaa dhalasho Imaaraati ah oo uu qaatay sanadii 2008. waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay ganacsatada dhaqaalaha badan ku leh Dubai. waxa uuna Shahrukh Khan leeyahay caqliyad ganacsi. hanti ahaan waxa uu haystaa in ka badan 600 milyan. haddaba Shahrukh Khan ma ahan jilaa oo kaliya balse waa ganacsade dhaqaale badan ku leh dalal badan oo ka mid ah dunida. hadda waxa uu ka tirsan yahay shirkadda Bollywood in ka badan 28 sano. walina waxa uu keenaa oo jilaa filmaan uu ku matalayo wixii markaa looga baahan yahay. waxa uu ku dadaalaa hagaajinta muuqaalkiisa ama qaab dhismeedkiisa. waxaan rajaynayaa inaa mawduuca wax ka faa'iideen. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. fadlan ku soo biir kanaalka Heliska Dunida, taawana gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee muuqaaladeena daawada. mahadsanid.